سبحانها جرا iyo gudubka wanaagsan ee maadada madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre oo si cajiib ah oo aad u xiiso leh oo kalgacal loogu soo dhaweeyay gobolkaasi waqooyi galbeed gaar ahaan magaalada madaxdiisa Hargaysa ayaa maalintii uu ka soo anbabaxayay waxa uu fagaaraha weyn 22 Oktoobar khudbad qiimo iyo qayle uga soo jeediyay dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi Hargaysa oo iyagu isugu soo baxay fagaarahaasi iyagoo soo dhaweyn xiiso leh madaxweynahooda ay jecel yihiin iyagoo halkaasi ku tusay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre meel kasta oo wadanka Soomaaliyeed ka tagaba si xiisa iyo kalgacal leh ayaa loogu soo dhaweynayay iyadoo ummadda Soomaaliyeed ee gobolada ku dhaqan ay iyagu xiiseynayeen kormeerkaasi hawleed ee uu madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ku marayo gobolada dalkan Soomaaliya waxana madaxweynaha ka hor halkaasi ka hadlay taliya qaybta 26 ee xoogga dalka Soomaaliyeed Jaalle Gaani oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay khudbadaasi kadib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa uu soo anbabaxay degmada Berbera halkaas oo adeegsan in dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo dhalinyarada ururada bulshada ardayda dugsiyada iyo dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi Berbera ay si xiisa iyo kalgacal leh ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre sida idinkuba aad u daawanaysan waxa halkaasi ubax aad u qurxoon qoorta u saray ubaxa kacaanka ee degmada Berbera iyada oo soo dhaweyn aad u heer sareysa degmadaasi Berbera madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayaba loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre goob kasta oo uu tagaba intii uu kormeerka ku marayay gobolada dhexe iyo gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya waxa uu dadweynaha goobahaasi u soo maray ku dhaqan uu jeedinayay khudbado tusaale oo qiimaha iyo qaayale ummadda Soomaaliyeedna uu tusaaleynayo inay wax wada qabsadaan midnimadana ay muujiyaan madaxweynuhu degmada Berbera khudbad aad u heer sareysa ayuu u jeediyay dadweynihii iyadoo isla halkaasi uu madaxweynuhu wakiishay inuu sidoo kale isna khudbad dadweynaha reer Berbera u jeediyo Jaalle Axmed Maxamuud Faarax oo xubinka guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbigana wasiirka macdanta iyo biyaha oo wafdiga madaxweynaha ka mid ahaa dadweynihii Berbera oo kugu soo dhaweynaya niyad faraxsan ubax calamo iyo dhalalka kala duwan ee ururada bulshada iyo iskooladu ay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Jaalle Siyaad khudbada kalaamka
iyo cadowgii ummadda Soomaaliyeed nooc kasta uu yahay ayaynu kaga intisaarnay oo maanta waxaynu aad u sii dhidibnay calankeenii buluglaha ayaynu sii dhidibnay oo daro sii taagnay madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminaya markii degmada Berbera ay ka soo dhaqaaqeen magaalada madaxda Berbera ayaa waxa uu kormeer ku soo maray warshada shamiitada ee ku taala degmadaasi Berbera isaga oo soo indheeyay habka warshadaasi loo dhisay iyo sida ay u shaqeyso madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayay oo ay kamid ahaayeen Jaalle Axmed Maxamuud Faarax oo xubinka guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbiga ana wasiirka macdanta iyo biyaha wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dalkan Soomaaliya Cabdalla Maxamed Faaqi wasiirka maaliyadda ee dalkan Soomaaliya Jaalle Maxamed Sheekh Cusmaan wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Muuse Rabiila Good wasiirka caafimaadka Yuusuf Xasan Cilmi wasiirka ku-xigeenka maaliyadda Jaalle Maxamed Xaashi Cigaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Maxamuud Cabdi Nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare Jaalle Yuusuf Cabdi Ibraahim Columbus maareeyaha guud ee caymiska qaranka xildhibaan Cabdilaahi Gacal iyo taliyaha qaybta 26aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha maamulka dawladda ee gobolka Waqooyi Galbeed xildhibaan Sareeye Guuto Maxamed Xaashi Gaali iyo madax fara badan oo ka tirsan gobolkaasi Waqooyi Galbeed ayaa markii ay ka soo baxeen warshadaasi shamiitada ama sibirka ee degmada Berbera ayaa waxa ay soo galeen si aad u arkayseen buurta dheer ee magaalada Sheekh buurtaasi oo run ahaantii dadweynuhu ay ku tilmaamaan inay tahay jidadka intii kacaankeena barakaysan aanu curan kuwa ugu khatarsan markaasi oo jidku aanu ahayn laami hase yeeshee imika si aad u arkaysiin ay laami tahay iyada oo goolada badan ay leedahay dadka qaarkii aan hore u aragna marka ay buurtaasi marayaan ay ka khalkhalaan oo ay ka shakiyaan in baabuurka ay la socdaan oo markaasi jarkaasi uu kala hoorto iyadoo casrada badan ama goolada badan leh sida aad u daawanaysiin buurtuna si aad iyo aad u dheer ay tahay inkastoo imika kor laga sawiray oo aad moodaysiin inay markaasi ay siman tahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigaasi ballaaran oo hogaaminaya degmada Sheekh ayay soo mareen waxaana u soo gudbeen gobolkaasi Togdheer magaalada madaxdiisa Burco halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen madaxda gobolkaasi Togdheer iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee gobolkaasi Togdheer iyo Buujooga halkaasi oo uu halhal u gacan qaaday isla markaasina madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa halkaasi ku soo dhaweeyay ubaxa kacaanka Oktoobar ee degmadaasi Burco halkaasi oo ubax aad iyo aad u qurux badan ay qoorta ugu sudeen madaxweynahooda iyada oo wadada hareeraheeda magaaladaasi Burco gasha dhowr kiiloomitir dadweynuhu ay ka soo baxeen hareeraheedana ay saarnaayeen iyaga oo lulayay caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaalle Siyaadna uu saarnaa baabuur korka ka furan halkaasi oo uu gacan haadinayay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi Burco ee isugu soo baxday sida kalgacaltooyada iyo walaaltinimada iyo soo dhaweynta madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaalle Siyaad oo imika adaawanaysiin wadada hareeraheeda inay dadku tuban yihiin magaaladaasi Burco si ay u soo dhaweeyaan madaxweynahooda ilaa iyo gurigii la dejinayay madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre markii uu tagay magaalada madaxda gobolkaasi Togdheer ee Burco oo madaxda gobolka iyo dadweynaha aad u tiro badan ay ku soo dhaweeyeen waxa halkaasi garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Burco heesoo ku soo dhaweeyay koox ka tirsan gobolada Berbera oo iyagu marayay gobolkaasi Togdheer oo wayda
Gracias.